السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalyaal waxaan rabaa inaan idin soo gudbiyo aayad aad u qiimo badan. aayadani macnaheedii haddii aad fahanteed waxaad ku noolaan doontaa nolol aad u qurux badan. intaan muuqaalkeeni gudaha u galin, marka hore youtube-keeni subscribe noo saar, muuqaalkana like saar. إلهي سبحانه وتعالى قرآن كيسيه كليه ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. dadka waxaa ka mid ah kuwa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala u aabuda si shaki iyo labalabeen leh. diintoodii ma ahan mid adag oo sugan, balse waxay u taagan tahay sida qof meel erifa istaagay. haddii uu helo khayr sida maal, caafimaad, guul, nolol fiican, wuxuu ku qanacsan yahay diintiisii, wuxuuna sii wadayaa cibaadada. laakiin haddii ay ku dhacdo dhibaato, faqri, jiro, imtixaan, wuxuu ka jeesanayaa diinta Allah subxaanahu wa ta'ala oo dib ayuu u noqonayaa. qofkaasay wuu khasaaray adduun iyo aakhiro, maxaa yeelay qalbigiisii deganaan ma helo. aakharana Ilaahay subxaanahu wa ta'ala maadaama uu ka baxay jidka saxda ah, wuxuu ku abaalmarinayaa naar. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaynu ka magan galnay. taasi waa khasaaro cad oo aad u weyn. Cabdiraxmaan bin Zayd wuxuu yiri aayadani waxay ka hadlaysaa munaafiqa, sababtoo ah haddii dunadiisii ay u hagaagto wuu ibaadaysanayaa, haddii dunadiisii ay ku xumaatana wuu ka tagayaa diinta. wuxuu diinta u haystaa kaliya marka ay danihiisii dunida u eegto. casharka laga baran karo aayadani waxay tahay, aayadani waxayna baraysaa in mu'minka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu aabudo xaalad kasta oo uu ku sugan yahay, dhib iyo dheef. iimaanku waa inuu noqdaa mid adag. qofka mu'minka ah inuu aad ugu dadaalo ku xirnaanshaha Allah subxaanahu wa ta'ala, waa inuu jeclaadaa Allah subxaanahu wa ta'ala. adduunkani waxaa la isu keenay in la isku imtixaamo. qofku waxaa la rabaa inuu Allah subxaanahu wa ta'ala uu ku kalsoonaado xaalad kasta oo uu wajaho. waxaa loo baahan yahay inuusan ka tagin diinta islaamka, inuu Allah subxaanahu wa ta'ala diintiisii uusan ka tagin, inuu ku xirnaado Ilaahay subxaanahu wa ta'ala diintiisii. sababtoo ah qofku waxaa la rabaa adduunkani inuu ogaado qof kasto in loo keenay in lagu imtixaamo. qofka hadduu yaqaano sababta loo keenay adduunkani, wax kasta waa ku sabrayaa. balse qofka hadduu diinta u arko danihiisii inuu ku gaaro, halkaasay waxay noqonaysaa qofka inuu la kulmo khasaaro aad u weyn. walaalyaal, waxaa loo baahan yahay qofka inuu ku sabro caqabadaha nolosha. watilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas. maanta haddii aadan haysanin lacag, nolol qurux badan, macnaheedii kama dhaqna inuu Allah subxaanahu wa ta'ala uu ku nacay, balse waxay ka dhigan tahay inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku imtixaamayo. qofku waxaa la rabaa inuu ku cibro qaato nolosha adduunkani. walaalyaal, waxaynu isku dardaaramaynaa inaynu aad ugu xirnaano Allah subxaanahu wa ta'ala si aynu u helno farxad iyo reereen. muuqaalkani walaalihiinii gaarsiiya. aad ayaad u mahadsantihiin. intaan muuqaaliga aan ku kulmi doogno sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.